السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وولاشين صفية لورين أصحابتي إذا قالي ميل كستود أدونك جوجتان سلام قبيت كسو دواذا يوتيوب جانال كيga maanta waxaan idin wadaa baraambur ayaad mar walba igaaga barateen baraamburkaas maanta wuxuu ku saabsan yahay oo aan rabaa murtidayda inaan ku cabiro saaxiibka sida aad ogtihiin saaxiibka markuu kuu noqdo saaxiib wanaagsan maasha Allah waa waxaan la heli karin markaad isku xumaataana waa cadowga adduunka ugu xun inuu saaxiibka kugu xumaado oo cadow kugu noqdo laakiin aniga waxaan aaminsanahay inta aadan saaxiibka samaysanin inaad maaragta ka fiirsatid oo aad horta qofka baratid inta aadan la saaxiibin inaad barato qofka dhaqankiisa iyo dabeecadihiisa iyo qofkan maxaa ka suurooba iyo maxaan ka suuroobin intaas inaad barato muhiim waaye aniga saaxiibo badan ma qabo sababta aan saaxiibo badan u qabin waxaan u haystaa inay tahay wax aan iga socdo sababtoo ah saaxiib kasto markaan arko ma ku qanco isla markii insha Allah waxaan fiiriyaa qofkii ani aan maaragta markaas la dabeecad keenay qof kasta waa ogtahay dabeecad oo wata adduunka waa ogtihiin dabeecadaaseti marka qof kasta oo is og yahay oo dhahay ani dabeecadeeda saan waay qofkii xanaaq badan wuxuu dhahaa ani waa xanaaq badna qofkii dabeecad xun wuxuu dhahaa aniga maaragtay mad oo dabeecad xun ay dadkaas ma la keeni karo qofkii yacni caqli la waa is og yahay laakiin dad badan oo iyagoo dabeecad xun isku haysta inay dabeecad leeyihiin waa jiraan dad isla saxana adduunka badan mararka qaarkood way dhacdaa laakiin inaa is og tahay ayay u badan tahay markasto marka maanta gabaygayga wuxuu ku socdaa saaxiibkana anaa samaysanooyo waxaan u samaysanayaa sidaan aniga rabo saaxiibka aan jeclahay aan marka uga hadlaaya saaxiibka ani aan jeclahay oo aan rabo saaxiibkii saas inuu ahaado ana aan saasoo kale u ahaado saaxiibkaasaan maanta murtidayda maaragta uga hadlaaya kusoo dhawaada baraamburkii wixii idinka anfaco ka qaata maasha Allah marka aad dhageysataan waxyaabihii aad fahmi weysiin kelmadii qaar caruurta inta ku kortay midalan oo maaragtay aan af Soomaaliga waaweyn fahmi karin commentiga ku kala faa'iideysan kartiin dadka maaragta ku saxaayo hadii aad hore noola joogtay aad baan kuugu mahadcelinayaa oo aad maaragtay ula socotay hore baraamburadeyda aad baa u mahadsan tahay aan ku leeyahay hadii aad nagu cusub tahay waxaan ku leeyahay soo dhawow ka soo qaybgal baraamburada iyo murtida Safiya Loreen insha Allah subscribe-ka tamisaabka commentiga gambaleelko taabato oo maaragtay wax kasto cusub si aad maaragtay meeshaas uga la socoto ayaan maaragtay ku leeyahay ku soo dhawow bismillaah waxaan bilaabanaynaa baraamburkii saaxiibka wanaagsan iyo hoosan anigu jeclahay haddaan kuu sifeeyo gabahaygayga waa sidaan awalan waa inay sumcad fiican tahay oo isriigane oo ceebta kaasi ka hayso sharafakeedu saayid yahay colaada inay necbaahato isan carab badnayn cadnool inay tahay oo cadowgeeda ay taqaan doqon cuqdadaysan noqon ay wax cafin kartaa sirta inay ka haydinayso ina siinin ruux xantayda kuwa sidaana suga ayar dhihi kartaa oo halkay saaxiibaday joogta cadowgaygu sooman yahay oo qofkay sanad ay dagaaleen ya saakadaan anigu saacaan arkaa aan salaami karo haddaanan 3 saac ismaqal saayidiya isbuuc amaan safar ahaado oo aan sikadiisa buuxo waa inaysan sanka taagin oo ay sideedii tahay anaan sida boqoradii anu keeno haadiyad saare sidii nafsadayda u dhowron sadriga ku qoro saaxiibay isku sheega khayronan ceeba siidin ilaahay soo rabo ku saaxiibnaba aan jeclahay waan isu soo duceynayna sabab la'aan suntana ii keenin sahanay dadkii dheheen oo markaan qalad
sameeynayo iisaxeen oo saani ma habboona itiiraahda oon isiirin hadalka kayaadu keenta ku suuxinuun anigu ra'yigayga saan doona yeeli karo saaxiib xura baan rabaa hayon adoonsi siidin samaha iyo qayrka isku saacidnoo jecel oo saaxiibba kala dilyaadu saamayn ku yeela karin oon saacna xanaaqsanayn saacna faraxsanayn waan sidii jirjiro hole midaha baynin oon isroogin siday wax u aragtay sheegta saacadaas saaxiib adduunyiyo midkii aakhiraan rabaa anigu in yar baan qabaayo sadriga ku qoran saaxiibba in yar baan qabaayo sadriga ku qoran intaan haystana ilaahay haygu anfooco aamiin saaxiibada in yaraan qabaa oo sadriga ku qoran oo qaali ah aad bay u badan yihiin dadka aan maaragtay macruufka nahay dadka aan maaragtay sheekaysano dadka aan isku fiicannahay laakiin saaxiibadeyda qaaska ah waa fara ku tiris 5 ma gaarayaan laakiin waa qaali maasha allah good quality marka walaalayaalo baraamburkan dhageysta murtidiisa wixii aad ka fahantaan iyo wixii idinka anfaco commentiga iigu soo reeba waxaan aad iyo aad iskugu raacsanahay mar walba aan iskugu raacsanahay qof kasto inuu dooqiisa ka ciyaaro dabeecadda iyo saaxiibnimada iyo isjeclaanshada iyo isla socoshada waa dooq qofka maaragtay Soomaalidu waxay ku mahmaahdaa dadkaba markii laga soo tago xayawaanka xataa shimbirkiisa la duulaa shimbirta xataa si isku leedahay macnaha ee iskula biibtaa waay qooley hada arad qooley kale agta ka taagan ma aho gorgor agta ma ka taagna saaxiib ma la ahan yani kooxa maaragtay adduunkana la iskula socdaa marka waxaa idin dhihi lahaa in wanaaga maaragtay hala badiyo sida aa hadda ka aragtiin meel walba adduunka social media aa ka aragtiin saaxiibadiyo maaragtay markay isku soo rogaal celiyeen oo macnaha iyaga isku soo noqdeen xumaan ay iskula soo noqdaan qaarkood oo caydooda media la fadhiyo oo saanay ahayd heblaayasaan oo mar walba maaragtay la isku dhagan yahay ceebo badan maaragtay la kala gudbinayo ceebahana in la kala gudbiyo oo la isxumeeyo waa wax aad u xun oon qalbigana u fiicneen midda kaleentood waxaan arkay oo murtidan iga keenay saaxiibo aa u malaysid gacan inay ku jiraan gabadhan markaad u fiirsanaysid maba ahanba saaxiib ee qof la haystay u eg tahay runta markii laga hadlo sababtoo ah xukun adagay ku dhex jirtaa meel maanta inta baxda kaligeed ma aadi karto leesh saaxiibteed way xanaaqaysaa waxay leedahay si u aada meeshaas ma aha si wanaagsano saaxiibay waa israaci lahayn aniga adiga maxaa iiga tagtay iyo abaayo waa ka xumahay bini aadanka qofka ah degdegoo ku bixi karaa ma ahan waxaa dhici karta meelay aada in lagu coloobo oo la dhaho meeshaas ma aadahaa bas aniga adiga ma isi salaamayno meeshaasay noogu kala dhamaatay waxaa laga yaabaa inay hadda sida baraamburkayga aan ku sheegay oo kale inay meel aado safar aado degdeg ku dhacdo oo la dhaho meeshaasaad aaday mana ii sheegin saasay noogu kala dhamaatay aniga adiga oo dagaal weyn meesha labadoodii dhexda ka maro ama saaxiibtiiyoba telefoonka kaa qabanaynin maxaa dhacay 3 beriya iyadaba kusoo wacday messageka ay kusoo qortayna ma aadan fiirinin marka way kula colowday war 3 beri on telefoonka kaa qabanin maxaa igu dhacay ma ogtahay adiga maya kama warqabtid say wax u dhaceen maya ma ogid waxay kaaga dhigtay laakiin adi inaa maaragtay aan aniga telefoonkaas hadaanan kaa qabanin xumaan ay ahayd nolosha marka ma ahan xumaan dad oo iyagana dabeecadooda saas tahaa jiro oo labadooda habi iskugu yihiin saas ay iskugu faraxsan yihiin dadka waa dadba waa nooc marka marka noocan aniga aan baraamburka ku tilmaamay waa nooca aniga aan rabo waa nooca aniga maaragtay aan jecelahay saaxiiba dabeecadaas lana waa haystaa ilaahay ha ii barakeeyo ani saaxiibkay waxaan u dhowraa nafteedo kale ilaahayna waxaan ka baryayaa saaxiibo kheyr qaba inuu ka dhigo ummadda saaxiibka oo dhan intaasaan kusoo gabagabeynayaa hadalkayga
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.